waxaan u gudbayaa walaalkeen Yuusuf Shaafi sheekh aad baan ugu mahadnaqaynaa jazakallahu khayr sheekh Mawlid runtii asoo waliba aad u mashquulsan oo duruus leh buu barnaamijka nagala qayb qaatay barnaamijka soo socdana uu nagala qayb qaadan doona insha Allah waxaan rabaa inaan su'aasha afraad u soo noqdo oo ah waa maxay opioid crisis-ka ama the risks of using it opioid waa maxay opioid-ka hadalka aad ugu badan yahay hadalka marka qaarkood ma fahamsanin wax laga wado maxay tahay isticmaalkiisa maxaa ka dhasha maxay community-gan ugu badan tahay drugs iyo waxyaabaha noocaas in dhalinyaradu isticmaalaan impact-iga ama culayska ama saameynta ay ku leedahay xagga caafimaadka maskaxda gaar ahaan xilligii covid-ka ilaa hadda su'aalahaas aan rabay inuu Yuusuf Shaafi from mataqaana wellness alliance ka socda runtii shaqo badan u haya dhalinyarada السلام عليكم magacaygu waa Yuusuf Shaafici waxaan ka shaqeeyaa xarun la dhaho Alliance Wellness Center oo ku taasho Bloomington Minnesota waxaan la shaqeynaa dhalinyarada ahaato wiilal mise gabdha oo u baahan in la caawiyo haday noqoto wax la dhaho treatment su'aasha sheekhay weydiiyay waxa waaye Alliance waxaan qabano waa rehab center basically dhalinyarada badanaa u baahan hadii la caawiyo haday noqoto daroogo inay isticmaalaan mise haday leeyihiin xanuun maskaxiya aan ka caawinaa xarun maxalleyn dadka lagu haayo ilaa iyo muddo 3 bil ilaa iyo 6 bil ay ku jirayaan oo laga caawinayo daroogada si iskaga dhaafi lahaayeen badanaa waxyaalaha qaban waxa kamid ah wax la dhaho group therapy individual therapy ruuxaantii arrintan oo daroogada oo opioidka aad bay u soo badatay the last 2-3 years because dhalinyaro badan baa isticmaalaan oo Soomaali ah iyo gabdho oo ku dhinteen Allah u naxariisto ku diinta ku dhimatay arrin aad iyo aad dib ay u tahay community-gana way tahay because run ahaantii wax kasta waa qarinaa haddaan Soomaali nahay wax kasta waa ceeb hadduu qof u baahan yahay in la caawiyo mise hadduu qof daroogo isticmaal waaye hadduu isticmaalayo ma loo sheegayo family qof kasta waa laga qarinayaa waxaana wax la daaweyn karo waaye wax oo maaha life sentence maaha qof kasta waxaan wax laga tawad keeni karo way tahay waxaa lahaay daroogada badan ilmaha waxay ku isticmaalaan waxa laga yaabaa inay xanuun maskaxiya maanta ka hadlayne waxa laga yaabaa wiilka mise gabadha inay xanuunsan tahay maskaxiya haday noqoto depression or anxiety haday noqoto walwal badan haday noqoto iskuulka inay kalaasihii ay maaragtay ku baasi waayay mise ka dhacay mise waxa laga yaabaa inuu hataa qof saaxiibkiis ka dhintay oo geeri dhacday maybe waalidkiisa maybe ka dhintay or furniin is a big thing in our community dadka badan waa la isfuraa ilmihii inay maaragtay inay waxa laga yaabaa xagga hooyo ay la joogaan mise aabood ay misgareeyeen so waxa laga yaabaa just sometimes inay maxaa lahay iska bilaabaan daroogada inay bilaabaan because dhalinyarada saaxiibahood badan dhahan maanta xoogaha waa iska rafaasan tahay daroogada maanta soo tijaabi run ahaan daroogo qofka markuu cuno ma ka fikiraayo waxyaalo badan dhib badan ma ka fikiraayo because maanta cirku ku jira qof high waa qofka hadduu high yahay maxaa laga yaabaa inuu dhibkii iyo problemkii ku haystay inuu ka fikirayn because waa qof de maaragtay joogin specifically opioidka qofka markuu isticmaalo run ahaantii Alliance Wellness Center maxay furneed ilaa 2015 badanaa waxaa arki jirnay dad marijuana isticmaalo mise khamri isticmaalo the last 2-3 years opioidka aad u batay and there's a lot of reason why waxa u dhacday number one community-geena dad anaga kamid ah daroogada iibiyaan so that's a big factor because wixii meel kastuu yaalaa opioidka hadda xaafadan Cabdiraxmaan ka shaqeeya ilaahay khayr si shaqo fiican u haya oo daryeel youth outreach badan u sameeyaa marka waxa laga yaabaa xaafadaas oo kale Soomaali badan inay joogto Soomaali badan inay degan tahay dhalinyarada badanaa way isticmaalaan mise waxa laga yaabaa saaxiibood inay isticmaalaan mise inay baashi iibiyaan so is easily accessible meel kastay taashaa daroogada also opioid are very addicting is really wax laga fuqi kara maaha qofka hadduu hamar barto it is really hard in iska dhaafaan because not only does opioid have wax la withdrawals waxa laga yaabaa qofka hadduu kaniinki uu qaadan waayo leese hadduu shalay kaniinka qaatay mise maanta tomorrow hadduu qaadan waayo qofki wuu xanuunsanaya xanuun oo qof hergab haya mise fluga haya camal waaye physical withdrawal waxa la ku dhahay qofka wuu xanuunsanaya ama tag dhabar xanuun dhidid dhaxan
hurda la'aan cunto la'aan matag so qofkii asaga dhan waa qof xanuunsan so kaniinkii inuu ku laabto waa isu u fiicnaada right so wixii every day bari kaniinkii u qaadana one day you fiicnaana next day xanuunkii qabana kaniinkii u qaadana and then one day you jooga kaniink and this is a very expensive habit so marwana waxa laga yaabaa qofkii inuu $200 maalintii inuu isticmaalo jirkaada la qabsanaya ala $200 kaniin inuu maalin kasta qaato that's why ilmaha badanaa dambiga u galaan because $200 cunug 19 years old jir ma keeni karo so marka waxa keenaysa qofkii inuu wax soo xado mise inuu meel jabsado mise inuu hoodiis dahab ka xado mise inuu baabuur soo xado mise inuu kan sameeyo mise inuu dukaan soo jabsado so that's why a lot of the kids badanaa oo daroogada isticmaal inay legal system ku jiraan because waxan way socdaan and I could talk about this for days but I'm going to kind of keep it short so Percocets is the one thing badana ilmaha isticmaal ay ku bilaabaan Perc-10s ay dhahaan or Percocets and then maxaa la lahay after that a lot of the kids they get introduced to fentanyl waxa la lahaa fentanyl is a lot more potent a lot more stronger and a lot of people can usually overdose especially jirkaada hadduu la qabsanin waa kaniin aad iyo aad u culus badan mise qofka hadduu qaato u badsado wuu ku dhiman karaa that's why a lot of dhalinyaro badan ay ku geeriyoodaan marmar kaniinka waxaa laga yaabaa qof inuu gurigooda ku sameeyey drug deal inuu gurigooda ku sameeyey waxaa laga yaabaa inuu waxyaalo badan markuu wax qasaayay uu ku daray so qofka hadduu jirkiisa uu la qabsan mise hadduu qof yar yahay kaniin intaa leega waxaa laga yaabaa intaa leeg inuu qofkii qaato qofkii sameeyana inuu wax ku badiyay daroogadii mise fentanyl inuu ku badiyay and qofkii inuu badsado uu markiiba ku geeriyoodo dhalinyaro badan oo aad iyo aad u fara badan baa ku dhimatay Allah u naxariisto marka waalidiinta waxaa muhiim ah inay ilmahooda horta ay la socdaan ay maartay saaxiibahood iyo waxyaalaha ay sameynayaan maalin kasta inay la socdaan and okay there opioid badana waa kaniin there's a medication called Suboxone or methadone and that medication is there a liquid type of drugs that they use they put in the Gatorade drinks and things like that is he talking about morphine or it's a mixture hada day coolka iyo nine coolka waxay isku qastaan markay lacag haysan yeah but those are not deadly yeah those are not deadly that's so the fentanyl is the thing that's killing a lot of the people and badana is in a kinin format is not in sharobi waxaas maaha there's a medication oo qofka I don't want to say ka dhaqaysa but ka caawinayso and called Suboxone iyo methadone laba waxay ka caawinaysa daawadaas number 1 waxay ka jaraysaa qofka markuu xanuunsan yahay xanuunkii ka jaraysaa number 2 xaaradii ka jaraysaa qofka xaaradda ma lahanayo so kaniinka daawada hadii la siiyo daawadaas ka caawinaysaa qofka suu jirkiisa u fiicnaado waxaana wax la daaweyn kara waa isna wax life sentence laakiin dadka badanaa ma fahansano there's also a stigma in daawada la qaadanayo dadka qaarkood xidhan daawada ha qaadan ayada nafteeda ku noqonaya addicted which is true but at the same time daawada waa laga jari karaa inta kale daawada wax dhakhtar siinayo waa maaha wax qof guri ku gadaayo because qofka waxa inuu daroogada ku badiyo qofka inuu ku dhintaa laga yaabaa marka I think the most important thing waalidiinta u sheegayo waa ina ilmaheena aan la socono naxariis badan baan u baahanahay guri aad ka dhisato Muqdisho iyo Garowe iyo Hargeysa waxba kuma tarayo ilmaheena meeshan ku dhimanayaan South Minneapolis we don't need guri in Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxalla wherever you from Kismaayo it doesn't matter right because what's the point maxaa meeshan la joogta ilmaha de meesha ilmo badan ah Burnsville ku xawaala maalin kasta so waalidiinta is important in more than ay u naxariistaan waxaan wax la daaweyn kara waaye wax ceeb ma aha waxaan waxyaalo dhalinyarada sometimes these things happen way jirtaa meelo badan I think about 20 treatments in Soomaaliya jirta anaga hada imaan meel kale aad kartaa waan ku caawin karnaa qola cadaana jirta oo ajnabi hada rabta inaad u tagto marka there's a lot of services available waxaan wax la daaweyn kara waaye just jahilnimada iska bixiya Cabdiraxmaan ka hadla haday dadkana iska jahilnimada iska badan a lot of fake news waxyaalo badan waxaa jira oo misinformation at times waxa hada aqaan waxaas ma aqaan ceeb maaha qof wixii ku fiican mise wixii aqaano waa la soo xiriiri kartaa waana ku caawin karnaa aad baan idin salaamayaa waqtiga soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilmuhu sidoo hadaba halkan ku soo gaaray inuu opioid isticmaalo and
ka Soomaali ahaan ka dhaqan ahaan 8 caruura laga yaabo in qofku waalid u yahay way adag tahay ogaalka ilmo kasta halka uu ku sugan yahay iyo meesha uu taagan yahay iyo saaxiibkiisa inaad ogaato way adag tahay caruurtu markay sidaa u fara badan tahay waxay involved ku yihiin ama ay saameeyaan caruur kale oo dhigooda ilmuhu meesha uu ka bilaabo masiibada weyn waxa weeyaan wax yar oo la yiraahdo vaping-ku waa sigaar elektrooniga oo udgoon oo dhalaalaya oo light fara badan oo qurux badan bixinaya oo aan dareemahaynin inuu ilmuhu guriga ku isticmaalayo laakiin caruurta middle schoolka ku jirta ayaa aad ugu badan yahay ilmuhu markuu bilaabo kaas haddii aanad war u haynin ama aad ogaato inuu ilmuhu isticmaalayo waa gateway-ga waa meesha laga galo masiibada waa albaabka laga galo masiibada ilmahaagu haddii aad ku aragto hal shay oo xun ha takoorin ha eryin waayo masiibada ugu weyn ee haysata waalidka Soomaalida waxa weeyaan ilmaha daqiiq khamri buu ku arkay khamrigu waa waxa ugu fudud ee qof aad ka daweyn karto aad ka joojin karto markaad ilmahaagii ku dayrisay khamri adaa waalidku ilmahaas meel u seexdana ma helayo waxaanu access u yeelanayaa in uu la saaxiibo dad halis ah oo masaa'ibka isticmaala ilmaheenina waxyaalaha u dhimanayaan waxa kamid ah waxyaalahaas iyo fahan darrida inaga haysata balwadaha ilmaha markaad hal shay oo xun ku aragto isku day inaad close ku noqoto saaxiib la noqoto masiibada uu lugaha la galay aanad kaga nixin aanad ka sasin aanu ka cararin haddii aad fahmi lahayd ilmuhu marka ugu horeyso waxaan soo bilbilaabayo waa daweyn kartaa waana dawo halka ugu dhow ilmahaagu inta dad ee uu ku xeeran yahay ee uu ku hareeraysan yahay waad ogaan kartaa marka balaayaduna waxay leedahay daba la qabto laakiin madax la qabtona halka ilmo markuu vaping ka yar isticmaalayo caqli ka celiya ma laha hal ilmo markuu middle schoolka la dhex galo hal xabo oo vaping ah intuu saameynaya intuu bari karaa maanta ilaa ilmahan yare caqli ma laha oranaya waxani waa waxun caqligii oran jiray ilmahan ma jirade waa ilmo yar uu ognahay maskaxdiisu halkay taaganta iyo korniinka maskaxdiisu ilmuhu markuu isticmaalo vaping-ka waxa hoos u dhaca korniinkii maskaxda kobcii maskaxda ilmaha maskaxdiisu way kortaa capacity ahaan iyo size ahaan iyo kororkeedu waa marka uu ugu badan yahay da'ahan waana marka ay tahay in aad maskaxdiisa loo ilaaliyo inaynu baranno weeyaan meelaha ay dhibaatadu inooga imanayso waa run waxaasoo masiibo ayna haysta intaasoo caruurteena iyo dhimanaysa maalin kasta waxay u dhimanayaanna waa opioidka weeyaan arrintan kiniinkan fentanylka la maqlo ama opioidka dawada opioidka wax xanuunka loo qaataa horta waa xanuun baabi'iye marka dhakhaatiirtu ay qorayaan ama qof ay siinayaanna waa wax qiyaasan oo la kantaroolay dhibaatada jirta dhalinyaradeennu waagii hore dhalinyarada waaweyn waxay isticmaali jireen khamriga kuwa yaryarna waxay isticmaali jireen marwaanada dhalinyaradii hore waxay ku fiicnaayeen markaa qofka dhalinyarada balwada isticmaala markuu qof dhalinyaro cusub u arko ama cunug yar oo hadda soo galaya way ceerin jireen wala dagaal jireen waxay dhigi jireen waxaan anaga ku baabaanay meeshan ma soo istaagi kartid way ka ceerin jireen laakiin kuwan hadda way soo dhaweeyaan sababta cunuga markuu cusub yahay shilimaadka inuu la qaybsado ama wixii la gaday rabaan way soo dhaweeyaan marka sababta keenaysa marka in dhalinyaradii balwada ugu dhintaan sidoo walaalkay sheegay kiniinkan ay isticmaalayaan waa macmil waxa lagu soo daray ma ogid
guryaha lagu sameeyaa xaafadaha lagu sameeyaa waa la boobsiiyaa midba midda ay ka raqiisan tahay ayay haddana ka daran tahay oo loo dhintaa waa waxa keenay marka dhallinyaradeena inta badan u fiirso waxay ku dhintaan baabuur iyagoo ku jira ayay kininka magacida ku qaataan qofna oo ogeyn baabuurka ama musqusha gurigooda ama sararta guriga intaba marka ay sameynayaan qof la jooga oo markaas gurma degdeg ah siin kara ma jiro marka alxamdulillah dhallinyaradeena inta wanaagsan ayaa badan inta yar duruufuhu haystaan waxa keenaya marka wax ay tabanayaan iyo xanuun ayaa jira ay rabaan inay maandooriyahan ay ku baabi'iyaan xaqiiqda waxay tahay waxaad arkaysaa cunug yar 14 sano jira gabdhihii wiilal leh hadda anigu markaan aad barnaamijkan u dhamaado salaada maghrib kadib xaafadda Siidar jimco walba 4 sano u dambeysay ayaa taagnaa xaqiiqda waad naxaysaa markaad aragto dhalinyarada maaragtay baahidayst laakiin waxa u baahan yihiin qof u naxariista iyo dad ka warhaya oo xogagaal ah oo ogaada duruufaha haysta iyo waxa ku kalifaya waxa u baahan yihiin qof maanta marka loo sheego walaalka Yuusuf oo kale markay meeshiisa galaan ay ka soo baxaan qorshe ay caruurtu u baahan yihiin intuuna meesha ka soo bixin in qoyskii waalidiinta waxaan u sheegaa inta badan aan ku dhahaa fariintan hadday maqlayaan qofka dhalinyarada ah maanta marka la soo dhaawaco ama uu xanuunsado uu dhakhtar u galo ama marka geeri ee reerka soo gasho isbitaalka iyo guriga qoyskaas meel kale istaago ayaa la waayaa qofka dhalinyarada markuu dambi galo tol ayuu yeeshaa lacag waxa loo ururiyaa lawyerka ugu qaalisan loogu qabto marka inta ana marka qabriga iyo tacsi ama isbitaal ana la gaarino familigaas loo soo tacsiyeenayo ama inta aanan lawyer loo baahanin lacag qaarana loo qabto oo tol yeelan cunugaas ama markuu qof dilo lacag ayaa la iska ururiyaa wadanka loogala cararaa ka hor waxaan u baahanahay in cunugaas la garab istaago in la garab istaago marka hadda intuu jidka taagan yahay ayuu u baahan yahay in lacag in loo ururiyo lagu daba qabto hadda ayuu u baahan yahay dad tol ah oo garab istaagayo qoys hadda intuu jidka taagan yahay ama balwad isticmaalayo uma baahna markuu isbitaalka ku jiro oo meedkiisa u yaalo ama marka la aasayo ama reerkaas marka loo soo tacsida loogu tagayo uma baahna marka hadda inooga baahan yihiin caruurteenu waalidiintana sidoo kale hooyooyin badan oo waxaa jira iyo waalid badan oo iyaguna meel wax ka bilaaban garan la oo rafaadsan wax garab istaaga la marka hadda ayuu qoyskaasna u baahan yahay wiilkooda ama gabadhooda intay banaanka taagantahay ama balwada isticmaalayso in laga warhayo oo wixii lala garab istaagi karo lala garab istaago assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuma soo talagelin waxba oo barnaamij aan soo diyaariyay ma jirin maartay markii hore qayb kama ahayn laakiin waxaan rabaa oon walaalaha kulli hadda baan soo galay ka hadlay wax badan in aan hal qodob uun ku daro oo ah dawada fentanylka oo for example hadda laga hadlayo ugu daran overdose ka imanayo waay dadka hostaalka jooga loo siinayaa ay ugu dhiman laayihiin dadka baabuurta ku dhex cunayaan ay ugu dhimanayaan iyo meelahaas maartay ku isticmaalayaan macnaha dadka waxaa jirta hadda ka hor maartay gabadh aan la joogo walaashay dhakhtar ku jirtay baa xanuun baabiye u baahnayd neersiga markay u timid waxay dhahday fentanyl baan ku siinayaa gabadh waa naxday way bood waxay dhahay may haysin xanuunna basteed waay marka waxaan dhahay may qaadaan dhahay qaadanaysaa u keenaan dhahay si 10 minutes ka yar markii xanuun ay doodii la siiyana waxay dhahday war hal xanuun lama dareemayo marka aad bay laakiin waa cabsi qabto waxay dhahday ama ku dhintaa ama sidan marka dawadu waa dawo fiican weeye oo safe ah oo pain medication ah oo xanuun baabiye ah loogu talagalay laakiin why ay dadku ugu dhimanayaan sababta dadku ugu dhimanayaan waxaa weeye dooska loogu talagalay buu ka batanayaa qofkii marka uu isku badiyo markaa waxaa dhacaya overdose waxaa loo leeyahay intii qiyaasti ahayd buu ka batay side effectga markaa waxaa ka mid ah ay sababto in ay respiratory depression keento ama ay qofka neeftiisa ay ku celiso marka qofka markay neefta ku noqoto uu neefsan kari waayo respiratory waxaa ku dhacaya failure uu maartay wadnaha istaagaya sababada maartay neefti joojinaya waxay keentaa wareer bay keentaa iyo madax wareer madax xanuun qofkii inuu maartay uu confusion ku dhaco in ay sedate garayso oo hurdo ay geliso maartay shutdown ka dhigto systemkiisa dhan
marka sababta qofku ugu dhimanaya saas way qaabka uu dawada u shaqeyso qaabkaas weeyaan macna xanuunka qaabka u baabinayso waxa weeyaan neerfaha message-ka waxa qaadaya fariimaha oo qofku markuu xanuun dareemayo maskaxda u sheegaya fariinta u diray oo dhahaya xanuun baa jira waa xididdo maartay jir ku jira oo xiriir sameynaya marka hadhow markii dawada xanuunka qofka la siiyo message-kaas istaagaya jirkaaga marka brain-ka ma helayo fariin ah xanuun baa jooga marka xanuunkiisaas uu kaaga baabaya maartay qaabkaas u shaqeynaysa laakiin dhibka weyn waxa weeyaan overdose-ka intii xadka loogu talagalay ka badan markuu qofku qaato waxaa kale oo ay maartay dadku ay cunayaan waa prescription dawadan maartay lagu keenaa waa in dhakhtar kuu qoro waaya over the counter lagama helo marka dadkani illegal bay kusoo heleen qaab kale kusoo heleen once uu qofkii helana xanuunkii hayay iyo waxyaabihii hayay oo dhan wuu ka tegayaa wuu kusii maartay markuu badsado problemkan ay kordhinaysaa waxaa kaloo ay problemku kusii imanayaa markuu qofku ku daro cocaine iyo heroin iyo waxyaabaha kale oo drugs kale oo illegalka ah markuu ku daro oo iyagana maartay double side effect baa imanaya oo everything wuxuu noqonayaa marka respiratory shutdown qofku ku dhacay marka waa dawo aad faa'iidana u leh aadna u leh dhibaato marka haddii dhakhtarka aad tagto oo qalliin aad leedahay oo fentanyl baa lagu siinayaa maqasho wadnuhu istaagan ha nixin hana diidin dawo qiyaasan baa lagu siinayaa oo milligram yar leh syringe yar baad arkaysaa oo lagu siinayo weliba aan lagu wada shubayn oo la dhahayo bal waxoogaa marka hore lagu tishaaminayo intaad u dulqaadan karta si loo fiiriyo marka saas ula socda insha allah jazakumullah khayr in badan misconfusion baa dhacaa misconception qofku markuu waxaan maqlo cabsi uun dhinaca hadduu ka maqlo dhinaca wanaagsanna ka arki waayo waa dhibkeeda marka intaasaan rabi lahaa inaan ku darsado jazakumullah khayr siyaabaha daawooyinka ama coping mechanismka seen ula dhiilgaraynaa xagga diinta sheekha noo sheegay laakiin xagga counselinka iyo medicalka iyo sidee qofka ula dhaqmi karaa marka xanuunadana ku dhacaan ama drugs ka imaadaan ama siyaabo kale ku imaadaan qofka markuu mental health crisis oo kale u galo sidee buu ula dhaqmi karaa arrimahaas hadday jiraan particular steps ama practical steps insha allah soo dhawow qofku sida uu ula tacaali karo marka ay maskaxdiisa wax ka qaldamaan waxa ka mid ah waa dhowr qaybood qayb walibana iyadaaba bad ah oo aan laga baxaynin qaybahaas ugu muhiimsanay waxa weeyaan kow qofku inuu helo gargaar caafimaad iyo dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin ka caawiya xaggii daawooyinka iyo waxyaalahaas oo dhan waxaa kaloo u baahan yahay religious coping ama spiritual coping dad yani waalid leh shuyuukh leh culimo leh oo uu ku xidhan yahay oo ka shaqeeya iyaguna inner strengthkiisa inuu qofku noqdo qof dee iimaan leh oo xooga maskaxdiisu ay la tacaali karto xanuunada siyaalaha kale ee uu kula tacaali kara xanuunka waxaa ka mid ah inuu helo family isku xidhan dad yani danaynaya ka warhaya taageera bush gareeya inta uu xanuunkan la tacaalayo waxaa kale oo muhiima in uu isaga laftiisu fahmo oo uu diyaar u noqdo in uu xanuunkan la tacaalo waxyaalahaas oo dhammi waxay ka caawinayaan ama waa coping mechanismka qaababka oo uu la tacaalayo qofka xanuunkan taa intaasaan kusoo ururinayaa waxaan u malaynayaa inaynaan waqti badan haysan salaadiina sanka inoo saaran tahay waxaan idinka mahad celinayaa dhammaan intiina halkan timid waqtigooda qaaliga ah iyo dhagahoodabana ammaanaysiiyey aad baan idinka mahad celinayaa wanaan idinka mahadnaqayaa inaad noo soo fadhiisateen na dhegaysateen jazaakum allahu khayran
إلهي هايدين كأبان مليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.